kulan wacan oo wanaagsan idil ahaantiin bay khiyaarta hawada nagala xidhiidhay meel kasta oo aad dunida ka joogtaan waa mar kale iyo xubinteennii faaqidaada waxaana daawadayaal barnaamijkeena aan diiradda ku saari doona warar naga soo gaadhay dalka Itoobiya qodobada aad ku maqli doontaan waxaa kamid ah qowmiyadda Tigreeg oo gabi ahaanba ku gacan sayday in afti laga qaado deegaanada Raaya iyo Walqayto ee ay ku muransan yihiin iyaga iyo qowmiyadda Xabashida hadalkan ayaa ku soo hagaagaya dhawaan markii ra'iisul wasaaraha dalka Itoobiya uu sheegay in deegaanadaasi loo diri doono ciidamada federaalka si looga qaado afti loona raaciyo deegaanka ay u codeeyaan inay ka mid noqonayaan arrintan ayaa ku soo hagaagaysa xilli maalintii shalay ay ku soo dadgureysay dalkaasi Eritrea ciidamadii ugu faraha badnaa oo gaaraya ilaa 40,000 waxaana la tilmaamayaa in dalka Eritrea ay qasab ballaaran ku hayso waqooyiga dalkaasi Itoobiya iyada oo aad u hubaynaysa jabhadaha ka howlgala deegaanadaasi sida jabhada Fano Eritrea ayaa ku dhawaaqday gabi ahaanba intuusan dagaalka weyn dhicin ka hor inay burburin doonto dalka Itoobiya iyada oo ugu dartay yasmiimo ay yasayso gabi ahaanba ra'iisul wasaaraha iyo waliba dalka Itoobiya ciidamadooda daawadayaal saameynta ay ku yeelan doonto qowmiyadda Tigreeg iyo gabi ahaanba xaaladda dalkaasi Itoobiya ayaynu ku qada dhigi doonaa barnaamijkeena waxaa kaloo ku maqli doontaan dowlad deegaanka Soomaalida iyo deegaanada kale ayaa loogu baaqay madaxdooda inay shahaadooyinkooda iyo CV-ga qof walba uu ku shaqeeyo in loo soo gudbiyo taasi oo ay wadnaha farta ku hayaan inta badan mas'uuliyiinta ka soo jeeda dowlad deegaanka Soomaalida oo intooda badan ku shaqeeya foojari waxaana la tilmaamayaa sida ay xogtu nagu soo gaaray ugu yaraan ilaa iyo dhowr iyo 10 mas'uul oo ka tirsan xukuumadda uu hogaaminayo aan iraahdee madaxweyne Mustafa Maxamuud Cumar ayaa la tilmaamayaa in ay ku shaqeeyaan shahaadooyin foojari ah taasi oo inta badan walaac iyo walwal xoogan ku beertay in ayna la jaan qaadi karin hanaanka horumarinta aan iraahdee ee dalkaasi Itoobiya waa sida uu u dhigay ra'iisul wasaaraha dalka Itoobiya daawadayaal waa 10ka bisha 11aad ee 2023 waxaadna hadduu rabbi idmo kaga bogan doontaan faaqidadeena oo uu istuudiyaha igula sugan yahay saaxiibkay Dr. Shido asagoo ka faalooda xaaladii ugu dambeeyay dalka Itoobiya Dr. Shido soo dhawow waan dhawahay saaxiibi hadalkan ah ee aftiha laga qaado ee ay diiday qowmiyadda Tigreeg muxuu kula muuqdaa hadalkani horta waa hadal mar kale dabka ku sii shubaya colaadda ee waqooyiga dalka Itoobiya haddaba loo maaran leeyahay maartay afar geesoodka u kala baxday ra'iisul wasaaraha dalka Itoobiya waxaad moodaa hadalla qariska tuura inuu marba xafiiskiisa ka soo dhaeyay marka kaleete una ka soo tuurayo maartay adhaaf aan isqaabilsanayn ama hadal aan maartay isku meel u jeedin labada waqti isku xigtana uu kolba hadal hore ra'iisul wasaaruhu ku hadlay arrintaas oo siyaasiyiinta gobolka Tigreeg u cuntami weeday dhawaan ra'iisul wasaaruhu hadal uu sheegay waxa jira uu dhahay waxaan dhaqan gelinaynaa heshiiskii Pretoria ka dhacay oo si gobolka Tigreeg dhulkaasi loogu celiyo dhawaan mar kale taliyaha ciidanka ka howlgal gobolka Axmaarada ayaa isna sheegay arrinta inay fulinayaan laakiin haddana ra'iisul wasaare dhawaaq waxa ka soo yeeray inay afti qaadayaan ciidamada federaalka halkaasi la geyn doono qoladii loo codeeyay gobolkaasi inay raaci doono ayadoo heshiiska TPLF iyo dawladda Itoobiya u dhaxeeyeen oo ahaa xuduudihii hore iyo sharciga hore Tigreeg ay qoreen iyo gobol walba meesha ka tirsanaa inay siday tahay uga mid ahaanayo ayna dhulkaana Tigreeg gacanta loo soo gelin doono dawladda Itoobiya ay ka shaqeyn doonto saxiix xasna laga hayo ka qaybgalayaashii dawladda federaalka ee shirka ka dhacay Pretoria marka hadalkan hadda ra'iisul wasaaraha ka soo yeeray waa mid si kala fogeynaya TPLF iyo dawladda Itoobiya waa mid u gogol xaadaya dagaal hor loo dhaxmara dawladda Itoobiya iyo maarta xoogga TPLF marka ra'iisul wasaaraha Itoobiya wuxuu dhax fadhiyaa karkaaro maartay ama dhardhaar waxa Soomaalidu taqaano oo hoostiisa uu holac ka kacayo oo mid walba mid kale uu ka daran yahay horaan u sheegnay in ra'iisul wasaaraha Itoobiya laba daran mid dooro ay u joogto oo labaduba ay dhimbil yihiin midna mid kale uu ka qaboobeen gobolkaasi waxa gacanta ku hay sidaan wada ogsoonahay ciidamada Axmaaraha ciidamada Eritreana oo aad u hubaysan oo dawladda Itoobiya ka amar qaadanin oo shuruuc iyo amar kala qaata oo maartay dalka Eritrea si rasmi ah u hoostaga oo gobolkaana muddo dheer gacanta ku hayay maamullo ayaga macmal ay sameysteen iyo maartay xarumo dawladeed u sameystay oo in dawladda Itoobiya ka talinin ayaa gobolkaasi ka taliya marka gobolkaasi in Tigreeg lagu soo celiyo waa inuu dhiig u daato waa in Eritrea lala dagaalamo waa in ay Axmaarada irdhowday halkaas saldhigyada ka dhigatay ee duulaanka Addis Ababa ku ah in la baabiyo waa in dawladda Itoobiya u diyaar garowdo dagaal aan la mahadinaynin meesha uu ku beeshban doono midda kaleete hadii la fulin waayo oo taasina halka ahaato ayadoo Axmaarada iyo Eritreanku ay geeska u gaan haddana waxay noqon in Tigreeg dagaal la galo
haddii la filin waayo TPLF waxay ka dhigan tahay in balanta laga baxay colaad ay mar kale ay maqal ka soo bilaabato aan la garanayn iyadoo meesha ku biyo shuban doonto marka ra'iisul wasaaraha Itoobiya waxaad moodaa hadalkan hadda ka soo yeeray ee ahaa in maartay gobolkaasi afti laga qaado in ay tahay mid dooradii in TPLF oo raqiisnaa dagaal la galo oo isleeyahay TPLF ayaa awoodahan kale ka raqiisan oo maanta dagaalkoodu ka fududaan lahaa laakiin kama fududaanayo TPLF waa awood aan la leexin karin cidda kaliya abiyo ka hortaagneed waxay dawladda Eritrea haday maanta Eritrea ay ka joojiso baash anu waxaan aaminsanahay military Ethiopia oo hor istaaga TPLF oo adsaba ka xakameynaya inuu jirin diyaarad kasta dad adeegsato inay jirin baan aaminsanahay adsababana halkoo cad ay isku soo shubayaan marka ra'iisul wasaaraha Itoobiya laba dagaal ba hor yaala labadan dagaal mid ka fudud marka waxaad moodaa hadda inuu eegay ama la taliyaashiisu ay ku qanciyeen Eritrea Axmaaras la socdo inay ka badan yihiin inay Tigreega ay ka kululiyeen ama ka awood badan yihiin sababtoo tahay gobolkan wali dagaalka ma dhicin gobolka la isku haysto wax u galay male meesha hadda ciidamada Itoobiya ay laba bilood ay iska caabin laayeen waa Axmaarada ka dagaalamaysa dhulka buuraleyda Bahardar iyo Gondar iyo gobolka Wooli iyo Goojam iyo deegaanada la leebelay dhulkan buuraleyda ee silsilada ka dagaalamaya ayaa laba bilood loo xalayay oo dagaalku uu barbar dhacay oo nimba galblay magaalooyinka ayiin kii hadda qabsa saacadkiisna lagala wareegayo oo muddo laba awoodood inay halka ay ku hardamayaan marka Abiy Ahmed qorshihii halkaas kama soo wareegin 3 bari kama soo wareegin 4 bari kama soo wareegin waqti uu dhahayay heshiiskii fulinayna gobolkaas waan ka saarayna ciidamada iyo waqti uu leeyahay afti baan qaadayna waxaad moodaa hadal ka soo yeeray inuu laga daba yimid oo la taliyaashiisu iyo maartay dadka siyaasadda taxliiliye ay ka daba yimaadeen Abiyow hadaad Eritrea xabad ku rida kaaga daran ee shuu Tigreeda balanta uga baxay aamanaad marka Abiy Ahmed sinaba kuma joogi karo dalka Itoobiya sinaba kuma hogaamin karo sinaba xukunka kuma sifadhin karo Abiy Ahmed dagaal waa lama huraan waqooyiga Itoobiya ka qarax cidu doona u dhaxay ama TPLF iyo dawladda Itoobiya u dhaxay ama Eritrea dawladda Itoobiya u dhaxay ama kan Axmaaro si xoogaysta noqdo Abiy Ahmed dagaal waa laga huraan waxayna u badan tahay cidda tagaysa inuu asagay wakaas horta waxaa jira in meeshan dad fara badan oo isdiidan ay ku sugan yihiin qowmiyada Tigreegu waad ogtahay waa nimankii la xasuuqay way Eritreankana ma rabaan Abiyana ma rabaan waa ninka ugu nacab yihiin iyo Oromo ma rabaan Amxaaraduna Abiy ma rabto Tigreena ma rabaan nimanka la yiraahdo Tigray oo ilaa iyo 80 kun oo ciidamo ay ka joogan waqooyiga laba gobol iyo 50 degmana haysta iyaguna Eritreanka iyaguna qorshahoodu waxa weeye Itoobiya inta iska hor keenaan in weligeed dagaal ahaato ay burburiso oo ayada loo soo gudbin horta waxa weeyaan marka arinta marka laga sheekeynayo waqooyiga ama dadka Itoobiyaanka ay analyze gareynayaan xaaladda dalka Itoobiya waa mid sideedaba ka burburta waqooyi baana haatan laga afuufahaya waxa ugu weyn ee afuufaysana waxa weeyaan waa Eritrea oo leh hadii aad ka baxdo ciidamadaada meesha aad ka bixiso adiga lagu midoobi waa kuwan hadda maanta ciidamadii ugu faraha badan ee faano ay qabsadeen la beela kadibna intay dawladdu iyo dhulba ka garaacday dib looga saaray marka waqooyiga dalkaasi Ethiopia waxa ka socda dagaalo ahli maaliga ka socda dagaaladii kuwii dhacay kuwa ka xoog badan ba ka dhici doona waxa weeyaan Ethiopia marka dagaaladaas sida hadda laga faaloonayo in ay ku burburi doonto ay waqti oo qoomiyad aamini doonto inay soo jirin waayo Amxaara maanta ma ogola in ay deegaanada walqayto yaraayeen lagu mulsan yahay inay qabsadaan ma ogola haye dhanka kale